بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa cali cabdisalaan. waxaan rabaa inaan tix yar oo kooban oo 9 meeris aan kaga hadlo arrimo ayaamahan dambe baraha bulshada maalmahan aad loo hadalhayay kuwaas oo ku saabsanaa in muwaadin Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya jooga la qabtay dawladda Soomaaliya ay qabatay kadibna loo gacan geliyay dawladda aan cadawga nahay ee Ethiopia. tixdan marka 9 meeris ka kooban waxay tahay ujeedadeedu in laga gilgisho arrinta haddii ay run tahay oo arrinta wax beeneeya oo kasoo dababaxa aysan jirin. waxay leedahay tixdu nuxnuxdiya hadalkan la wado ee na wada gaaray inkastoo naadada si sax ah nuxurkii loo haynin naxdin laba filaan buu noqday nabar xanuun weyne niyad jab bay ku tahay geesiyadii naadirka ahaaye nacabkana farxad bay u tahay iyo naalo qaaliyahe haddii nuqul beeneeya midaan noo bedeli waayo nabad laygu siro iyo ma rabo gaalo nacamlayna nijaasada sideedii waa inaan nimanka mayrnaayee nafis geliya Soomaaliya nolol ma haysaane. waa mahadsantihiin.